gudoomiye xildhibaanada gudoonka labada aqal xildhibaanada labada aqal guddiga madaxa bannaan ee dastuurka marti sharafta saxaafadda howlwadeennada golaha dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh runtii waxaa laga hadlayaa waa 10 qodob oo ah cutubka labaad oo qodobka 10aad ilaa qodobka 20aad marka xildhibaanada ugu horeeyana waa ka hadleen marka waan xoojinayaa waxaan rabaa qodobka 11aad baan ka bilaabayaa sinaanta cadaaladda sinaanta muwaadiniinta oo dhan iyaga oo aan loo eegin lab iyo dhadig diin midab xaalad bulsho ama dhaqaale afkaar siyaasadeed qabiil naafanimo xirfad dhalasho isirda iyo afguri toonna xuquuqda iyo waajibaadka u siman yihiin xeerka hortiisa si waafaqsan sharciyada islaamka qodobka waxaa moodaa inuu si xoogaa isaga hor imaanayo waxaana ku jira ereyga diin marka ay diin waaye diinta laleeyahay waxa way muwaadiniinta dhan waa muwaadiniinta oo dhan iyagoo aan loo eegin lab iyo dhadig marka diinta aan loo eegin waa diintee marka waxaan qabaa ereygaas diinta ama in laga saaro maadaama gadaal looga sheegayo farqada koowaad akhirkeeda uu ku jiro si waafaqsan shareecada islaamka qodobka 11aad sinaanta waxaan dhihi lahaa qodobka 11aad sinaanta xarafkiisa ama farqadiisa afaraad qofna maqaam iyo maamuus uu leeyahay awgeed ugama baxsan karo la xisaabtan iyo ciqaab faldambiyeedka uu galay waxaan dhihi lahaa xogaa qodobkaas waa kooban yahay in tafaasiil la geliyo yar oo caddaynaysa qofka xasaanadda le xeerarka loo marayo garyaqaanka iyo xeer ilaalinta iyo maxkamad marka qofka xasaanadda le waa in loo soo maro in loo soo maro xeer ilaalinta garyaqaanka maxkamad kadib markaas wixii ama la arko oona la arko isagoo falka ama ficilkii faraha kula jira marka xogaa qodobka waa kooban yahay waxaan odhan lahaa hala baaro ama is ahayn sidii hore dastuurka habeelooda halaana ka saaro qodobka 13aad xaqa nolosha qof kasta wuxuu xaq u leeyahay nolol waa sax nolosha waa deeq ilaahay subxaanahu wa tacaala siiyey bini aadamka oo idil shukran ya rabbi sidaas daraaddeed waa xaq dabiici ah oo qofna laga qaadi karin xogaa qodobkan maadaama wuxuu dastuur yahay oo qodobo yahay waxaa ku jira xogaa tafaasiil dheer waxaan odhan lahaa meesha ay ka bilaabanayso oo ah haddii aysan jirin asbaabo xeerku tilmaamayo in xaqaasi lagu waayi karo iyadoo xukun maxkamadeed oo kama dambays ah lagu xukumo qofka waxaan odhan lahaa xeerkaa lagu saaro maadaama wuxuu dastuur bulsho yahay oo warkaa tirada badan oo maxkamadda iyo waxaas aan xeerka hala geeyaan odhan lahaa waxaa jira isla qodobka 13 xaqa nolosha farqadiisa saddexaad soo rididda ilmuhu waa arrin ka soo horjeeda shareecada islaamka waana reebanta waa sax marka anugu soo ridid weligay ma maqal waxaan maqlay soo xaaqid ereygaas waxaan odhan lahaa la dhaho soo xaaqidda ilmaha maadaama wax meel saaran oo soo ridiyo uusan ahayn haddii ayna keenin xaalad caafimaad oo laga maarmin badbaadinta nolosha hooyada oo uu sugay guddi dhaqaatiir ah oo lagu kalsoon yahay iyadana waxaan odhan lahaa guddi dhaqaatiir ah iyada oo nolosha hooyada oo uu sugay dhakhtar u khaas ah dhalmada sababtana waxa weeye waxaa jira tuulo hooyo uu sadkeedii go'ay oo 9keedii bilood go'day oo xaalad adag gashay oo meel tuulo ah joogta waxaa la rabaa in la kala badbaadiyo ilmaha iyo hooyada ma guddiga dhaqaatiirtu muxuu noqonayaa marka ma guddi dhaqaatiir heer goboleedba ma heer maamul goboleedba ma heer federaalba guddiga dhaqaatiirtu muxuu yahay ma cadda waa in la caddeeyo guddiga dhaqaatiirta ah oo markaas lala xiriirayo haddii guddigaas laga maarman waxaan odhan lahaa ha laga dhigo oo sugay dhakhtar dhalmada u khaasa si loo badbaadiyo qofka muwaadinka ah ama isa labada nafoodba u wada goyn okay qodobka 13aad xorriyadda ka mid noqoshada iyadoo waxa way qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu ku biiro dad waxaan odhan lahaa in laga dhigo xisbi siyaasadeed sababtoo ah koox kale haddaa dhahnana waa ognahay dhibaatada kooxaha kala geysteen iyo waxa dalka dhib ka jira marka in la dhaho way qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu ku biiro xisbi siyaasadeed ku biiritaanku halkaa ayna ka joogo ku biiritaan kale yaa laynoo soo qorin qodobka 17aad xurmada hoyga qofna hoygiisa ama meelaha kale iyo waxyaabaha u gaarka ah lama baari karo lamana basaasi karo amar garsooro oo sababaysan la'aantiis marka halkaa waa si uu isugu karsan yahay waxaa ku jira shacab iyo qof xasaanad leh marka
waxaan oran lahaa qofka xasaanada leh lama caddayn sida loo baarayo hoygiisa annagoo og in xeerarka uu marayo qofka xasaanada leh marka la baarayo sida in xeer ilaalin garyaqaanka guud maxkamad in warqad laga soo qaato marka qodobkaana xoogaa waa kooban yahay in tafaasiil yar la geliyo xoogaa la faahfaahiyo u baahan yahay waxaa jira qodobka 19aad ee dastuurka meelgaarka ah oo farqada saacado dhaysa waxaa waajib ah in amarka garsooraha si toos ah loogu akhriyo deganaha hoyga baarahana waxaa ka reeban ku xadgudubka sharciga kaas qodobka 19aad xurmada hoyga ku beegan yahay waa laga booday waxaan oran lahaa qodobkaas waa qodob si fiican wax u tafaasiilinaya lagu soo daro oo hal loo daayo sideeda hore hal loo daayo sababtoo halkan farqada waxay sii raaciyeen farqadan waa la tiray maadaama nuxur ahaan ay ku jirto faqrada kore iyo qodobka 34aad farqada kore si fiican ugu cadda sidaan hadda meeshaan ugu taalay ugu caddahay hal loo daayo farqada 34aadna waan akhriyo kuma jiro marka waxaan oran lahaa sideeda hore hal loo daayo gudoomiye xuseen waxaan u maleynayaa mashquul baa tahay anigana waan hadlayaa waxaan rabaa waxyaalaha aan soo jeedimaha aan soo jeediyo oo ku xisaabtami doona insha Allah wana mahadsantihiin salaamu calaykum